kastaba suuligii aanu galaynay noogu soo miciinay daahirka naga dhigay ilaahay ducaha siiyo magaalada Buuhoodle ayaa waxa ka jira biyalaan aad u dar dadka danyarta ee degan magaalada Buuhoodle ayaa waxay waayeen wax ay biyo ku shubteen Maxamed Cabdirashiid iyo Maxamed Cabdi Ducaale iyo Maxamed Xaaji Jaamac oo kamid ah qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodle ayaa waxay soo gaarsiin laba booyadood biyo dadka danyarta ee degan magaalada Buuhoodle xaafadaha magaalada Buuhoodle laba kamid ah ayaa waxa saaka loo shubay labadii booyad ay soo gaarsiin qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodle iyagoo dadkii biyaha loo shubay sheegeen inay haysan wax biyo waa kuwan iyagoo ka hadlay ilaahayna ku mahadinaynaa dadka biyaha noo soo diray annagoo haraadan gaajana noo dheertahay xaafadaha qaar habeenada wallaahi inaan shaah lagu karsan oo inaan wax lagu cunaan lagu karsan oo inaan daqiiq lagu walaaqan ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadkeena noo soo miciinay bal horta wax kastaba suuligii aanu galaynay noogu soo miciinay daahirka naga dhigay ilaahay ducaha siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay waxaanu ka barnay ubadiyo arsaaqadba ha siiyo si ay nooga farxiyeen allah uga farxiyo haday dad haystaana allah u barakeeyo haday dunya haystaana allah u barakeeyo xooga hadii uu yara xanuunayana allah u barakeeyo meeshii la doonaba ilaahay ka caafiyo meeshii la doonaba allah ka caafiyo nabadgeliyo allah siiyo aakhirana maanta la hortaagan yahay ilaahay 40 sanadood weeye iyo 10 dambe oo ku dhamaanayo yoomal qiyaamo allah idinka nabadgeliyo allah idinka nabadgeliyo allah idinka nabadgeliyo gaajo allah idimo tuso haraadidimo ilaahay idimo tuso sida aad noo waraabiseen ilaahay jannada idinka waraabi adduunkana idinka waraabi aakhirana idinka waraabi allah idin gargaaro waxaanse aanu ku rayn lahayn shub bariisaanu de ku gaajoonayna wallahi waa gaajoona reeraha qaar baan dabshidan Soomaali gara ilaahay ha idin gargaaro wax noo soo dirac hadaan qabownay oo aanu biyo cabnay waxaanu karsanaan u baahanahay allah idin nabadgeliyo kuwa naga duubaya iyo kuwa noo keenayna ilaahay ha nabadgeliyo iyagana ilaahay waxaanu ka barnay iyagana caafimaad allah siiyo idinkana caafimaad allah idin siiyo waxa la soo baxay ilmo Mareykanka jooga laba Maxamed iyo wixii soo raaca ilaahay baa mahad leh ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ajar iyo xasanaad siyaada allah ka siiyo anagana ilaahay raxmad leh tiisaan ugu filan allah raxmad leh noo soo micino naga soo gaarsiyo inta kaaliyaasha qaayaha badanu ay noo tuburucayaan ilaahay raxmad leh raxiimka leh naga soo gaarsiyo ayagana jannadii firdaws allah ugu bishaareeyo adduunkana balaayada allah kaga xijaabo balaayada allah kaga xijaabo aakhirana cadaabta allah kaga xijaabo irsaaqadiisa ilaahay ha u bulaaliyo ilaahay ha u bulaaliyo tadadka allah ha u bulaaliyo taduunyada allah ha u bulaaliyo tadiinta allah ha u bulaaliyo jibaar muraadkiisa oo dhan allah uga dhigo waxa kasta oo ka cabsanayo dal shisheeyuu jooga ilaahay subhanahu wa ta'ala yasiiraha uga dhigo yasiira allah uga dhigo diinta islaamka aqoontiisa iyo sharaftiisa diinta islaamka ugu kaalmeynaya dadka ehelka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryanaa ilaahay inuu kaalmeeyo waxa jannada firdaws awalka u tahay ilaahay ugu kaalmeeyo diinta allah ugu kaalmeeyo deeqa allah ugu kaalmeeyo inta keentay iyo inta ka shaqeynaysa iyo inta u xusbiyeynaysa iyo inta ku riyaaqday iyo inta ku faraxsan inta baa allah u gargaaro mudanayaasha allah u gargaaro rag ayaga naga soo xusay dalka shisheeyaha allah u gargaaro allah u gargaaro allah u gargaaro intan iyo in ka badan oo baahanaba meelaha joogo naga eegaya waa lagu dhici waa in la is soo safo ilaahay waxaanu ka baryanaa ilaahay inuu gargaaro kuwa keenay allah u gargaaro kuwa kula socda allah u gargaaro saddexda wiil ee biyaha la baxay ilaahay subhanahu wa ta'ala meeytaadkoodii allah sii gaarsiyo meeytaadkoodii allah sii gaarsiyo meeytaadkoodii allah sii gaarsiyo noolahoodana ilaahay nolol xayaat leh oo cisilo oo sharaf leh oo ixtiraam leh allah ku nooleeyo allah ku nooleeyo kuwa wada macoo kale kuwa soo diray insha Allah kor baanu ka dhignay kor irsaaqadooda iyo amalkooda iyo nadaafadooda iyo noloshooda iyo cisigooda intaba kor baanu ka dhignay diinta kor baanu uga dhignay ubadka kor baanu uga dhignay abni saddan wa min khalfi saddan faaqshana fahum la yumsirun balaayadana way ka xijaaban yihiin balaayada intaas oo maxasabay waraabiyeen iyo in kale oo farabadan oo jingadaha shadooda gashay ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqad farabadan bay la bixeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii balaayaha dhana kaga xijaabo faatiha mara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin waxaan halkan uga ducaynaynaa Maxamed Cabdi Ducaale iyo Maxamed Rashiid iyo Maxamed Xaaji Jaamac oo jooga wadanka Mareykanka oo runtii dadkan walaalahooda soo gaarsiiyay biyaha ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad ka siiyo
duco waxa ugu filan intii ay maamadu ducaysay waxaan kala ummadda islaamka meel kasta joogtay inaan u sheegaynaa waqti adag baa lagu jiraa xilli adag baa lagu jiraa inay dadka walaalahooda ay u soo gargaaraan oo u soo naxariistaan marka inagu aynu dhulka isaga naxariisanaa ilaahay arlada samada inagana inooga naxariisanaya marka waxaan ummadda islaamka meel kasta joogtay iyagana aanu leenahay sidaas ay uga soo qayb qaateen dadka runtii xasanaadka iyo wanaagga jecel ay dadka walaalahooda u soo taakuleeyeen idinkuna inaad u soo taakulaysaan baa wacan iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabka kaga xoreeyo najaa maxamuud salaad telefishka caalamka CBA magaalada Buuhoodle